gudoomiyaha gobolka Saaxil Maxamuud Cali Salebaan Ramaax ayaa ka qayb galay munaasabad ballaaran oo lagu soo bandhigay 6 xildhibaan oo xisbiga muxaafidka kulmiye u soo xulay doorashooyinka golayaasha deegaanka ee degmooyinka Berbera iyo Sheekh. Gudoomiyaha gobolka Saaxil Maxamuud Cali Salebaan Ramaax waxa uu ugu baaqay xildhibaanadaasi inay dadaal adag u galaan sidii ay u soo bixi lahaayeen doorashooyinkaasi, isagoo tilmaamay dhanka kalena in xildhibaanadani ay ka haystaan taageero beelahooda oo ay iyagu soo xuleen. ballanqaadkii 3 bilood oo ugu horeeyay kulmiye ma rumeeyay biriishkii 5 sanadood dhamaan waayay ee Hargeysa ma dhabeeyay Berbera leedkeedii ma shiday laamiyadii ma ka bilaabay dekadii Berbera sidee u shaqeynaysaa lacagtii ma loo kordhiyay shaqaalaha runtii waxyaabaha danta guud ah inaynu qiimayno oo tas shakhsiga ah taanu ballan qaadayna waxa weeyaan marka danta guud dhisanto ayaa tagaarkiina ay runtii dhismaysaa. xildhibaan aadan xaaji diiriye diri oo kamid ah golaha wakiilada Soomaaliland ayaa isaguna tilmaamay isla markaana xildhibaanadaasi ku booriyay inay cudud ballaaran iyo taageerayaashooda ku soo kordhiyaan xisbiga muxaafidka kulmiye in doorashada ilaahay iyaga ku guuleeyo waxaynu ilaahay uga baryaynaa inay noqdaan kuwa degmada wax u tala kuwa gobolka wax ugu tala kuwa dadka ay medelayaan ee halkan fadhiya iyo inta inaga maqanba wax u tala kuwa Soomaaliland wax u tala in ilaahay nagu guuleeyo hawsha aynu isugu nimi iyagana ilaahay ku asbiro kuma soo saarayno ilaahay weydiisan. gudoomiyaha ururka Nawe gobolka Saaxil Saade Jaamac gudoomiyaha degmada Sheekh Kulmiye Salebaan odayga degmada Sheekh Cabdi Xasan Dawaare iyo waliba Abwaan Maxamuud Cali Buro ayaa dhamaantood si weyn u soo dhaweeyay xildhibaanadaasi tilmaamayna in loo baahan yahay in taageerayaasha xildhibaanadaasi iyo beelaha ay ka soo jeedaan ay si weyn isu garab taagaan xilliga adag ee doorashooyinka si ay guulo u soo hooyaan. sawaxanka buuqa all district maqlaysan waxay idin cadeynayaan kalsoonida lagu qabo dadka la soo magacaawday reer shiikhow soo iska xajin mayna arinta golaha deegaanka waa halkii la isku dhaafayay shaqana waynu niqinay inagu mid hoos iyo mid sare dabaal yeedaydeen si loogu talagalay inay ka tartamaan degmada Sheekh waxaanay magacyadoodu kala ahaayeen Baashe Maxamuud Muuse Ibrahim Cabdullaahi Cabsiye oo xilligan ah maayirka degmada Sheekh Umar Xaaji Cabdullaahi Xaaji Raabi Naaleeye Axmed Ibrahim Maxamed iyo Daahir Ciidin Cabdullaahi shandaasi xildhibaan ayaa ka tartamaya degmada Sheekh halka xildhibaan Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed oo loo yaqaano Biyoole uu isaguna ka tartami doono degmada Berbera. guud ahaan baa munaasabadaasi oo si weyn loo soo agaasimay ayaa ku dhamaatay jawi degan waxaana halkaasi ka muuqanaysay taageerada ay u hayaan dadka soo xulay xildhibaanada. عبد الكريم سعيد صالح تلفزيون عالمي هون كيبل تي في مقالة شيخ.